السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا كان الكنا فلنا داك عصبتا سبسكرايب تداكسي شكدنا او غدا galno tuuladan waxa ku noolaa naag dalaqalata oo u ekeed si wax kala ama fool xuma waxay cabi jirtay dadka dhiigooda maalmaha kamid ah ayay nin ka soo qabsatay albaab ninkii ayay madaxa ku dhigtay oo kala soo baxay gurigiisii oo la soo dulmartay wabiga dadku guryahoodii ayay xiran jireen waxayna ka baqi jireen naagtaas waxay la aaday godkeedii oo madaxa ka daloolisay oo ku shubatay weelkaas oo ah xeero markuu u buuxsamana waxay rabtay inay cabto waa u jeedaan waxay buuxsatay xeeradii wayna cabtay waxayna tiri allah dadka dhiigooda macaana waaba macaan bee qur'aan u soo qatago saddexdii nin oo ugu caqli badnaa tuulada ayaa yiri war aan xal u keeno naagtan biri ka maalin anagay baan qalanaysaa dadkii kala barobar ayada qaadatay waa run ee aan xal u keeno si aan meesha uga takhlusno nin ayaa yiri waa run oo aan xal u keeno halkaasna wuxuu noqonayaa inaan caawa aan seexan oo aan la kulano naagtii ayaa habeenkii dambe soo shaqo tagtay oo rabtay qof ay cunto wayna soo gudubtay oo wabiga soo dhaaftay waxayba aragtayba dadkii tuulada oo meeshii hororsan oo isku soo aruuray oo tiri war maanta maxaa ii taagantiin ma inaani wada cuna ayaa rabtaan mise diyaar ayaa ii tihiin oo meesha maxaad u taagantiin dantiina ii sheegta ana waa idin sheegaya waxa u taagantiin ii sheega ayay ku tiri maxaa rabtaan mise diyaar ayaa ii tihiin dadkii tuulada ayaa yiri anagu wax rabnaa inaan kuu sheegno arin muhiima arintaas ayaan isugu soo baxnay dhammaanteen oo rabna inaan kuu sheegno waxay tiri ii sheega arinta muhiimka aad ii wadeen ii sheega ayay 3 jeer tiri sababtoo ah waxay rabtaa go'aan cad waxay ku dhaheen arinta aan kuu sheegayno waa sida tan ee dhagahaaga furan waxay ku dhaheen dadka tuulada aad ayay u yar yihiin oo maalin kasta hadaa mid qaadatin way dhamaanayaan ee xal waxa u gaarnay inuu maalin dheeri qof kasta dhiig ku shubo si aadan u cudman oo u gaatoon annagana dadku naga dhamaan naagtii ayaa tiri waarun hadaa maalin dheeri qaato waa iga dhamaanasaan anna waan gaajoonayaa oo waa dhimanayaa si aan u gaajoon waa inaa fikirka ku dhaqaaqdaan oo aad ii shubtaan dhiigiina ragga ayaa ku yiri waa arin fiican waa lagu waxeenayaa arintaas ba shardi ayayna dhigteen waxayna sharti ku gaareen inay maalin dheeli qof kasta dhiig u shubo ninkii ayaa iska bilaabay oo gacanta iska jaray oo dhiigina u shubay naagtii dhiigii ayay la tagtay oo la carawday waxay la aaday godkeedii wayna cabtay oo tiri alla dhiiga dadka macaana maxay ku dareen ma sonkor bay ku dareen mise malab bay ku qaseen waaba macaane aana beri u tago oo dhiig kale ka soo qaato waaba macaan maalintii dambe ayay soo noqotay ayadoo dhiig raadinaysa oo tiri maanta balanteen waxay ahayd inuu qof kale dhiigiisa ii shubo ee qof kale ha is xoreeyo ee dhiiga ha ii shubo haddii kale mid ayaan idin qaadanayaa intaysan intaa dhicin qof dhiiga ha ii shubo ayay tiri naagtii dalqalatada ahayd ninkii ayaa yiri warniyahow maanta
iga qallee saaxiib waan xanuunsanahay dhiig ima shubi karee adigu shub ayuu ku yiri maadaama aan xanuunsanahay ee ma shubi karo ninkii kale ayaa yiri niyahow iga qallee balantu sidaa ma ahayn ani beri dambe ayaa shubaya markay naagtu imaatay miyay xanuunku ugu kacay mise waxa ka baqsay inaad dhiig shubtid ninkii ayaa iska shubay oo yiri anaa shubaye firiyaa lagu waaynin naagtii ayaa mugeedii xeerada ahayd oo dhiiga ku jiray la aaday godkeedii way cabtay oo tiri alla dadka bilaadanka dhiigoodu macaana asxaabteeda qaaliga intaas ayaan ku soo gabagabeeyay sheekadii naagtii dalqalatada ahayd la soco part 2 channelkana subscribe saara waa maasan